هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo maanta runtii ay taariikhdu ku beegan tahay bisha Ramadaan 19keeda ay maanta muxuu ahaa walaaluhu ay halkan ku afuriyeen walaalo Soomaaliyeed oo maaragtay aad u tabaalaysan. dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa guud ahaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo maamulkeeda gaar ahaan kulliyadda educationka and social science oo maanta runtii kaalintoodii halkan ka qaatay qaybta arrimaha bulshada ama u khaadima bulshada ee social work. waxaan rabaa runtii inaan aad ugu booriyo walaalihii maanta halkan ka qayb muxuu ahaa kaalintooda ka qaatay iyadoo sidii aan ognahay 16 bisha ay maaragtay kulliyaddu guud ahaan ay maaragtay ka qayb qaadatay haddana maanta oo maalintii 19aad ay muxuu ahaa departmentiga social work ay mar labaad maaragtay ay inay walaalahood ay muxuu ahaa afuriyaan ay isla garteen oo ku soo laabteen runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay walaalahaas jazaakumullahu khayr dhammaantiin waad mahadsantihiin. runtii dadka maanta meeshan lagu afuriyay waa dadkii mudnaa in la afuriyo walaalaha Soomaaliyeed guud ahaan qof kasta oo muxuu ahaa arintaas ka qayb qaadan kara waxaan ku boorinayaa inuu maaragtay uu ka qayb qaato iyo dhammaan kulliyadda jaamacadaha qaybaheeda kale ee dhiman inay insha Allah tacaala ay ka qayb qaataan mashruucan oo Ilaahay dartiisa uu muxuu ahaa isugu xilqaameen walaaluhu naadiga muxuu ahaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo kaalin muhiim ah ama door muhiim ah ka ciyaaray barnaamijkaas oo ilaa maalinkii bisha Ramadaan ay soo bilaabatay ilaa abtuno oo maanta muxuu ahaa bisha ay 19 tahay ay naadigu ay u taagan yihiin sidii ay walaalahooda Soomaaliyeed ee danyarta ah ay u tusin lahaayeen inay maaragtay ay wixii tabartooda ay awoodaan inay kaga qayb qaataan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka muxuu ahaa naadiga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee gudoomiyaha ka yahay walaal Ashraf. waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. waxaan mahad gaar ah oo ballaaran u jeedinayaa kulliyadda maaragtay waxbarashada iyo muxuu ahaa qaybta sayniska oo maanta maaragtay door muhiim ah meeshan ka ciyaaray maamulkeeda aan u mahadcelinayaa. especially waxaan u sii mahadcelinayaa maamulka ama madaxda maaragtay departmentiga social work oo uu madax ka yahay muxuu ahaa usaadka qaaliga noogu ahaan jecel lahay Cabdiraxmaan Maxamed Daahiye oo runtii aad noogu dhiirigeliyay maaragtay mashruucan inuu muxuu ahaa ka qayb qaadano maadaama oo aan nahay dad muxuu ahaa arrimihii bulshada oo inay u adeegaan baranaya aan nahay inaan kaalintanada iyo doorkanaga aan halkan ka muujino aad noogu muxuu ahaa noogu dhiirigeliyay iyo dhammaan barayaasha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay wanaagiina iyo maaragtay dadaalka aad noo haysaan waa idinka mahadcelinaynaa. jazaakumullahu khayr baan leenahay dhammaantiin. أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد waxaan noo soo dhamaaday si habsami leh oo Ilaahay oo mahadcelinayna barnaamijkii afurinta oo soo wadayna adiga ardayda kuna siisay qaayo dhamaadkii 10kii dhexe aan ku jirno maalintii 19aad. barnaamijkaas oo ay ka qayb qaadanayeen adiga ardayda iyo bulshooyinka Soomaaliyeed bay ka qayb qaadanayeen oo loogu sameeyay dadka danta yar afurin intay aan gaarsiin karno aan gaarsiinaynay. barnaamijkaas maanta waxa ka qayb qaatay markii labaad kuda waxbarashada iyo cilmiga bulshada gaar ahaan social work aad ayaan ugu mahadcelinayaa. عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات ugu horreyn waxaan rabaa inaan halkan u mahadceliyo Allah subhanahu wa ta'ala noo suura galiyay in maalintii 19aad naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee bisha barakeysan Ramadaan ay afurin u sameeyaan dadka danta yar oo xaaladaha adag ku sugan deegaanka Garas Baale ee duleedka magaalada Muqdisho. mahadcelin kadib Allah kadib waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo
kuliyadda waxbarashada iyo culumta bulshada gaar ahaan departmentiga social work waxaan rabaa inaan idhaahdo kuliyadda waxbarashada waxaa tihiin kuliyaddii ugu horreeyay oo 2 jeer ardaydeedu ka qayb qaataan qayrkaas looga daysanayay maaragtay la iskaga daysanayay oo kuliyadaha dhan ay maaragtay uga qayb qaadanayaan jaamacadda waxaad sameeyeen wax fiican oo wixii ugu fiicnaa ay qof bini aadan uu sameey lahaa ama dad ay isku garab siin lahaayeen ama isku kaalmaysan lahaayeen aan ugu garab siideen maamulkiina iyo ardadiina iyo macallimiintiina iyo maamulkiina ardadaba waxaan rabaa inaan idiraahdo kun kow jeer waa maadsantiin ilaahay ha idinka abaal mariyo wax fiican aad sameeyeen oo wax aad mudantiin in maaragtay dadku kaga daysadaan aad sameeyeen sidaad nuugu soo noqoteen mar labaad inaan mahad gaar ah idin celiyaan rabaa especially waxaan rabaa inaan u mahad celiyo social work oo ah department ka tirsan kuliyadda waxbarashada iyo culumta bulshada anoo ku hadlayo magaca naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idhaahdo waa maadsantiin walaalayaal walaalaha kale oo kuliyadaha kale tana kuwa nagala qayb qaatay iyo kuwa kale noo soo socdana ayakana waa soo dhaweyneena inta dhiman insha Allah waxaan rajeynayaa inay ka qayb qaataan بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله